halkan waxaan kusoo gudbinaa taariikhda qabiilka Gadabuursiga iyadii oo faahfaahsan nala socdo. Taariikhda Gadabuursiga. Qabiilka Gadabuursigu waa qabiil ka mid ah qabaa'ilada waaweyn ee Soomaalida, waxayna degan yihiin inta u dhaxaysa buuraha buurta la yiraahdo Kaalamarda xagga koonfurta, dhinaca waqooyina Badda Cas. Qabiilka Gadabuursigu waxa uu leeyahay taariikh dheer oo ah dhinaca boqorada, xagga ganacsiga iyo culimada diinta. Abtirsiinta waaye wuxuu uu sheegay caalimkii weynaa ee Sheekh Barkhadle Cabdilaahi taariikhdii uu qoray ee laga helay kutubkiisii in qabiilka Gadabuursigu uu ku magac dheer Samaroon. Markaa ninka Gadabuursiga la yidhi iyo Samaroonkuba waa naanays magaciisa rasmiga ah waxaa la odhan jiray Maxamuud ibnu Saciid Sheekh Xasan ibnu Maxamuud ibnu Axmed ibnu Madluug ibnu Abibakar oo ku magac dheer Dir ibnu Cabdiraxmaan Irir ibnu Ismaaciil Aji ibnu Cusmaan Soomaal binu Jibriil Waalid binu Xasan Luqmaan ibnu Xuseen Dalmar ibnu Haaruun Kamaal ibnu Ismaaciil Kooshin ibnu Ridwaan ibnu Nuux ibnu Axmed ibnu Cuqayl ibnu Abi Daalib. Maxamuud ibnu Saciid wuxuu uu ahaa raggii la dagaalamay ninkii gaalaha ahaa Oromo ee dhulka Soomaaliyeed soo galay qarnigii 7 ee Hijriyada, wuxuuna caawinayay Suldaanka Sacaadudiin oo ka mid ahaa boqorradii Soomaalida, ahaana ninkii Saylac xukumayay waqti dheer. Wuxuuna ahaa Maxamuud ibnu Saciid ninkii hawl wadeenka ka ahaa ciidanka ka dagaalamayay dhinaca galbeed, wuxuuna qabsaday ciidankiisii magaalada ku magac dheer Abasa, Awbare, Awbuube, Awofle, Camuud iyo kuwo kale oo badan raadadkoodu ku yaaliin dhinaca waqooyi galbeed. Maxamuud markii uu helay guusha badan wuxuu uu ku noqday Saylac, wuxuuna si diiran ugu soo dhoweeyay oo ka hor yimid Suldaan Sacaadudiin, una sameeyay xaflad ballaaran isaga iyo ciidankiisii libinta helay. Sidaas ayaana loogu bixiyay Samaroon, iyada oo lagu inshaarayo magaca weyn iyo geesinimaduu ka muujiyay dagaalkaas iyo baabi'intii uu baabi'iyay cadowgii ka soo horjeeday, waxaana lagu qoray magaciisii diiwaankii geesiyada. Guusha ka bacdi wuxuu uu guursaday markii uu u dhashay inankiisii culaad ee la odhan jiray Makadoor. Waxa uu u guuray isaga iyo xaaskiisii buurta la yiraahdo Buur Cali. Markuu halkaa muddo
muddo badan deganaa, xoolo badanna ku yeeshay halkaas. Waxaa iska hor yimaadeen oo colaadi dhex martay qabiilka la yidhaahdo Wado Cali. Danaakil waxa aanay ka dhaceen xoolihiisa intii badnayd, ka dibna wuxa uu u guuray bari isaga oo wata col badan. Wuxa uuna degay buurta la yidhaah Maydh oo uu deganaa Sheekh Isaaq. Si fiican oo qalbi furan ayaana loogu soo dhoweeyey, si wanaagsan waa loo dejiyey. Waxaana la sheegay inuu gaashaan buur la samaystay qabiilka dega Gedo. Qabiilkaas oo taageero badan ka helay markii uu dagaalka kula jiray qabiilka Gaalaha. Sidaas ayuuna ku baxay magaca Gadabuursi. Intaas kadib, ilaa intii uu ka dhimanayay, wuxuu ku noolaa magaalada Maydh iyo agagaarkeeda. Wuxa uuna geeriyooday markii ay taariikhdu ahayd 795 ee Hijriyada, waxaana lagu aasay Dibgax. Qabiilka Isaaqa ee dhulka degana aad bay u siyaartaan, wayna barakaystaan. Kitaab Ansaabi Dahabi fii cilmi ansaab, siduu uu sheegay Shariif Jisaan, siduu uu ka soo guuriyey kitaabka Futuuxul Alxabash, jiska 4, bogga 759. sidaa loola socdo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa inoo goor kale insha Allah, iyo taariikho fara badan oo kusoo bandhigi doono halkan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.